بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto guud ahaan dal iyo dibadba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ciidan ciideeda khayr iyo nabad iyo barwaaqo ummadda Soomaaliyeed Allah nagu gaarsiiyo nabadda iyo deganaanshaha dalka iyo dawladnimadiisana Ilaahay ha kordhiyo walaalayaal sidii aan ciidii horeba aan dhahay waa maalin farxad leh waa maalin wanaagsan Ilaahay ha naga aqbalo soonkii bariye la soo dhaafay sagaalka maalmood ahayday iyo ducadii muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan gaar ahaan xujaayadeena oo aan kula dardaaranay inay dalka u soo duceeyaan dadka u soo duceeyaan dawladnimada u soo duceeyaan Ilaahay waxaan ka baryaynaa ducooyinkaas faraha badan inuu noo aqbalo intaa kadib walaalayaal mar walba way mudan tahay inaan isxasuusino dadka Soomaaliyeed in ay dalkan iyo dawladnimadiisa ay mar walba u istaagaan garab taagnaadaan waxa fiican oo san oo dawladnimada casriga ee dunida kale ay ku dhaqanto ku san in aan isku garab istaagno iskuna garab siino wax kasta nolosha maanta waxay u baahan tahay dawladnimo wax guulaysan karo dhaqaalana ma horumari karo amnina lama heli karo sharaf iyo karaamo iyo cizina lama heli karo haddii aan kala dambayn iyo nidaam iyo ixtiraam ku salaysan dawladnimo mar walba qaanuunku iyo shareecadu sarrayso haddii aanan la helin dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu hambalyeynayaa ciidda ayaamaha khayrka iyo barakada wato waxaana kula dardaarmayaa inay u istaageen dalkan waa dalkoodii inay u gargaaraan dalkooda dadkooda iyo diintooda intaba midnimo walaalnimo isjacayl isqadarin iyo wax walba ka horumarin danta dalka Soomaaliyeed ilaahay ninkuu dilaa dhimanayo maalin walba dad baa naga dhimanayo qofan ilaahay tiisi aanay soo gelinna ma dhimanayo dadku inay dhiiradaan oo ay ku dhiiradaan waxa wanaagsan oo ay ku dhiiradaan waxa saxda ah oo ay ku dhiiradaan waxa aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo ilmahooda wax u tarayo dardaaranka Allah waa intaa waxaan si gaar ah rabaa inaan fariin ugu gudbiyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan walaalayaal wiilashaydi gabdhaheennii waxaan leeyahay dalkan adika dad u ah inna waa sii socotaa inna waa soo socotaa inta soo socota adikaa ah inteenna hadda joogta ee aan muxuu ahay dhalinyarada aan ahayna waxaan leenahay war wixii waaye aragnimo aan leenahay wixii shalay aan u soo joognay hana laga qaato waxaan soo joognay 30 sano dawladnimo ah 1960kii ilaa 1990kii waxaan soo joognay 30 sano ku dhawaata si gabagaba ah oo muxuu ahay duruufo gaar ah iyo dhibaatooyin dalka uu ku sugnaa waa u soo taagnayn wixii dhacay waxaan isku tuhmaynaa inaan leenahay waayo aragnimo meeshii ay wax ka qalloocdeen iyo meeshii ay wax nooga hagaageen oo aan u baahannahay inaan xoojinno iyo meeshii ay shalay wax ka qalloocdeen oo aan u baahannahay inaan toosinno ama godkii shalay lagu dhacay inaan ka tallaabsanno ama ka leexanno dhallinyaradan doonaynaa in ay waayo aragnimadaas nagala haraan nalala qaataan maantana aan la hagaajinno annaguna aan muxuu intaan noolnahay aan dadaalkeenni ku sii kabno dalka iyo dadka in ay dawlad diinta iyo dhinac walba u gargaarta in la helo walaalayaal markale ciid wanaagsan Soomaaliya waa cid uma maqna ceelna uma qodna dadka Soomaaliyeed ay sugay aan iska yar aan dhaafno meeshii aanan dhaafi karin aan yarayno inaan dibadda sii eegno inaan dibadda wax ka dhuganno inaan dibadda ra'yi ka sugno inaan dibadda xoog iyo caqli iyo xoolo ka sugno aan iska dhaafno haddii meelaha qaarkood aanan dhaafi karinna aan yarayno aan isku tashanno waa xooggeenna waa xoolaheenna waa caqligeenna midda keliya ee dawladnimo Soomaaliyeed ay ku imaan karto aan isu geysanno waan hubaa inaan leenahay caqli wanaagsan xoolo nagu filanna inaan leenahay dal barwaaqaa oo kuwa adduunyada ugu wanaagsan ana inaan leenahay waxaan rajaynayaa inaan caqligaas iyo wanaagga isu geysano dawladnimona dalka aan u curino sanooyinka dhow ee soo socda aan ka fakarno 30 sanaan hadda ka soo sheekeeyey 30 sano oo dambe Soomaaliya noocay ahayn rabnaa aan sharaxno aan dhifaan garayno aan qaabayno aan taladeeda gaarno hiigsigeedana aan dhisno annaan hiigsanno aad iyo aad u maasantiin khayr iyo wanaag iyo barwaaqo ayaan u rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta dhibaataysan dhibaatada Allah ka qaado inta caafimaad daran caafimaad buuxa Allah siiyo inta wax la'aan hayso xoolo wanaagsan oo wax u tara Allah siiyo inta caqligu ka maqan yahay caqliga Allah u soo toosiyo dhammaanteen
dariiqa toosan allah nagu toosiyo aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu